جيسان جعلها مرة واحدة صدقني هنا إلى النهار. صدقوا إنك كنا مرتين. السلام عليكم جالس السلام عليكم الدنيا على جواني وبينكلا اوفيشال channel ka daawana بينكلا اوفيشال fadlan aan ugu cusubta channel ka subscribe noo sar هذا وما سنتين المقال waxaan soo wadaa in kasto dhawaantan aan mashquulsanaa waxaan ku mashquulsanaa xaalada dugis welcome back my YouTube channel بينكلا official maanta waxaan soo wadaa barnaamij ku saabsan public questions oo aan ka soo diyaarinay xagga magaalada Gaarisa ma sha Allah su'aalahaas maanta soo dhicin إن شاء الله نسوي بدون دورة تعوشوا عن جايز بل كسر دنيا جبتين أبغى أقول سؤال برنامج كن ما ده سمعها ما شاء الله ما قاعد أسدح نبغى برنامج كن ما أنت نلقي بهذا حليمة عبد الحسن ما شاء الله برنامج سيتن عاي ودا عاي أقول جرا سؤال بسيط أصلا هذيك غير ملذا غير ملذا ما شاء الله نينك هو جبتين هو يديس هذا يكون ما ده أقول نلا مع سميله أبغى فكرة نلا ولا يسوي. جيسان جعلها مرة واحدة صدقني هنا إلى النهار. صدقوا إنك كنا مرتين. باين حوسه. الربع حر يقول لي أنا كنا نتعب. يقولون. هذا مرتكو ما مع سميله. نقول نلا يقول. عدد دوما في سود وين. دونك هذه ودي جبتين هذوك وهو يتكون ولا نسمع مع سميله. كمية يا. كمية لا. سيدا درت ممكن تيجي لأني قال. فرين ما تدورن ليه. اوكي ما شاء الله ثانكس فور ماسك ويلكم تو برامج كسودو وكده ولا لا ما شاء الله ما عاد صدق صاحب ايوه سمير محمد فرح ما شاء الله برامج زي سنتان عاي ودعايا gabadha wada joogto oo reerka oo familka wadatiin hadii hooyada ku madaxul noolaanay ku ma xasameeyay hooyada noolaanay maxaa dhimaya ka jiro hooyada noolaanay guriga joogta sidoo yada waa Soomaali beelan ku jilay mid guriga ku noolaanay guriga waa guriga camal soo gabadha saacadeen guriga ku noolaanay wax dhimaya ku jiro okay ma sha Allah hadii ay maartay gabadha wada joogtiin ay ku dhaado aniga lama noolaanayso furin ayaan ka dalbanay ma xasameeyay ilmaha ayada furan waxa loo goran karaa maadada baxso ilmaha mid kale waa la helaa familkiina waxa ku kala dumin leeyahay hooyada darteed ku kala dumin leeyahay maxaan hooyada qaadana maxaa family waxa kala dumin la doorto ila laakiin hooyada ma loo tagaa ma jiro okay ma sha Allah thanks fikrada nala wadaagtay ku ma santa saay aba su'aal ku jira waa way weydiin kartaa ma sha Allah magaca saddexaad barnaamijka nala qayb qaadanay Xaliim Maxamed Farax ma sha Allah su'aasha tan ee sidtan ay u dhacaysaa waxaan ku weydiin rabaa ninka ay wada joogtiin hadii hooyada ku laba kulno noolaanay ma xasameeyay soo dhaweynay okay ma sha Allah hadii uu maartay ninka hadii ay hooyada ay maad ma xasameeyay soo dhaweynay ninka haduu hooyada maray ma xasameeyay burka hooyada darta muu burin اوكي ما شاء الله هذا هو فرح سنتك قول كاينه هوايه درتي يقول بوليس فرح سنتاي اوكي ما شاء الله برامج انا لقيته كما سنتاي ثانكس ويلكم سودو ولا شيء برامج ku soo dhaw waxaan ku dir barada magaca saddexaad oo raale Abdullahi Ali Abdi ma sha Allah barada ku soo dhaw barnaamij ka aan ku wado waxa way reer ma leeyahay ma aan rajaynaa laakiin ma sha Allah lacala aad reer qabto hadii ay gabadha ay wada joogtiin ee hooyada ma xasameeyay ma aqbalaha waan soo dhaweynaa hadii lacala hooyada ay madana oo gabadha ay dhahdo aniga maadaama hooyada ay maday aniga hooyada ay lama noolaanayso ma xasameeyay gabadha xaqeeda siinaa waa mafurle okay soo baxo furaysa waxaan furayaa ruux maciishada ka soo horeeyay adduunkan ay keenay ee gacanta ku sheertay maxay tahay meel loo Soomaaliya maadaama ruuxan ruux adduunkan uu yahay ruuxka kaadana xaaskay taado inta aan ku helay ruux adduunkan ka helaan sidaan kara laakiin ruux adduunkan keena sidaan kara okay ma sha Allah waa maasada bra thanks welcome ku soo barnaamijka thank you brother ku soo barnaamijka siitan ay u dhacay welcome bra soo wada macaan su'aal hadan ku weydiin diyaar ma tahay okay ma sha Allah waxa ku weydiin waa saaxiib sare horta adiga raali magaca saddex noogu bilow Yaasir Maxamed Umar Salaat okay ما شاء الله ياسر waxaan ku weydiraa saaxiib sare family ma leedahay saad dilibo amal waxaan ka wada family reer ma leedahay ma wala ma reer ma lihid okay ما شاء الله
reer haddii lacala inaad guursato jeclaan lahayd mustaqbalka okay waxaan ku idin rabaa lacala haddaad guursato gabadha aa wada joogtiin oo familka aa wada joogtiin oo xaaskaaga soo jeedaada haddii hooyadeed imaado hooyadeed waaya haddii guriga kusoo birto ma soo dhaweyn lahayd walaal haddii ku dhahay lacala forever aan kula noolaanaya maxaa samayn lahayd walaal horta ta meesha ku jirta waxay tahay qofkan aniga horta xaaskayga xaaska lagu sheeganaya waa nolol adduunyo ma garatay maxaana ka sii weyn waalidka ku dhalay adduunka ku keenay aniga waalidkeeda aan qadarin waa waalidkiisa ku qadarin ko waalidkeeda aan qadariyaa kadib inaan waalidkeeda qadariyaa inta ka dhammo ilaa walaal okay gabadha xaaskaaga hooyada sadogtaada oo hooyadeed way kula noolaan lahayd haddii lacala hooyada ay imaado eedana waan kula noolaanaya maxaa samayn lahayd hooyaday walaal horta fikradaada ka hadalaya weligaada ka hadal horta aniga horta kuley hooyadeed baan soo dhaweeyey kuley ayadana sidaan aan jeclahay kuley waa waalidkeyga soo dhaweynay hooyadeyna waa adduunka aan ku nool ifka aan joogaba waa soo dhaweyn lahayd okay gabadha haddii ku dhahda ani hooyada ay lama noolaanayso maxaa samayn lahayd hadda walaal hal baan ku sheegay tan meesha ku jirta hale waa islaam waa la heli mise qof dumar waa dini laakiin hooya waa adduun ay fikradaada maxaa dhihi lahayd fikradaada kula iska buri laa walaal maxay islaan hooyada diidaa waa furi lahayd miya furi laa walaal familkaaga reerkaa dartiid hooyada darteed buu burin lahayd waa burburin saaid waa ka tegi lahayd okay brother waa maasan tahay barnaamijkeeda saas ku gooyay thanks brother maasan welcome brother insha Allah sab barnaamijku bilaawna way waxaan jeclaan lahaa mar labaad mar saddexaad inaad ka soo qayb gasho insha Allah hay walaal welcome kusoo dhaw brother barnaamijka ما شاء الله برافو ادي ورا لي مقعد صدح عبد النور حسن محمد ما شاء الله ده برنامجك خود على سلسله سؤالات كان اكو ويدنا سؤال اسك فوق خير ملا صاحب رجينا صاحب ما شاء الله غير كان رجينا سبرادا ما شاء الله ان شاء الله وخيريسا لعل حدي ادو رير له فميلك حاسكاده او اي لا جوجو حدي هويده xanuunsan ay ku maadeen ku noolaan ku dhamaa xasan meel soo dhaweena ducaa iimaad ودعا ku maadeen ما شاء الله soo dhaweeyay okay hadii hooyada ay imaado hooyada hadii imaado oo gabadha awal joogtay ku dhaay ilmo noolaan karto ma xasan meel waa khalad xaqeeda la insan aydan fasix aydan waa fasixile okay ما شاء الله soo maxuu fasaxsan waa taas way iska caddahay waa waalidkay bay ku caasisay marka ma wada noolaan karno meesha oo noolaan kartid sida ku sidalay ما شاء الله thanks brother aan ku soo dhaw anaga Benkila official brother ku soo dhaw برنامج كسر وعلى مقعد استعشيقه. ما شاء الله سودة. محمد دعيس ما شاء الله. سواش ترى برنامج كان يوصل سنتها يقول سواش دار متى نقولي. هاي ما شاء الله وعم كوي دربا غير ملايا. غير ملايا لكن ورا جنسة. أوكي ما شاء الله وعم كوي دربا لعل هذا نين برستو نينكا برستو هو يسديد هذا قلنا عن محسن ملك. يا روحي. كل نولانه وهذا عمل سقط ما شاء الله حدي هويدا اي مادو عيد فاميلك او هيلو xanuunsan ay maado way dhahay waan kul noolaanaya oo ninka diiday ma xasameeyay وكل تقلين تاس oo kul tigilay sababta familka hala hooyada darteed oo burburinaysa اور برنا هو نول شيء دون واسمه okay marka waxa leedahay familkan hooyada darteed oo burburinaa familkayga ساسو sababta oo burburinaysa maxay tahay هذا هو نول شيء دون واسمه marka waa ninka ku tigina leedahay سنه okay thanks waa maasanta wala shiro barnaamijka ku maasantahay marka labaad mar saddex shiro okay barnaamij ku shiro ما شاء الله برادة أدور رالي مجا سيد عنو قبله عمران ناصر عبد الحسن ما شاء الله برادة سؤال سيدنا أولي عيسى برنامج سيدنا قبله وانا سؤال شو يدروا حواي خير ملا ساعد ما شاء الله جود هذا ولا دكتين هذه هو كل الوقول نورانا ما حسب ملا ساعد ما شاء الله haddii adi hooyada xanuunsan ay maad maxaa sameyn leedahay ku dhaw gabadha ani hooyada ilma noolaanayso maxaa leedahay familkaas ku burburi la ma raxsantahay inuu familka halaas ku burburo ayda hadda ku qanacsan tahay ani ay hooyadii ay مش أي مطروح اللي بتجوبته وأساسا هو أخو خلاص يعني عايز سير تحصل واي أيضا أو بلاتي تاس أنا جونا
ما شاء الله brother thanks كسر برامجك هذا ما صدق والله brother كسلام ما شاء الله brother ما قاعد سدح نظر عليه محمد عبد العالي ما شاء الله thanks bro غير ملاذ اوكي غير ملاذ اوكي ما شاء الله قبل هذا ولي دوتين هذه هو هذا حنوصلنا كنا كلنا فوائد مع حسن ملك maybe inaan ogaado waa laga yaabaa laakiin ma fiicno xaafadayda مو فرحسني اوكي ما شاء الله حدي لعل هويدا اي مادو oo ayado xanuunsan ay dhahay foo eeban kula joogaa hooy ma sameeyay hooyadii waa wayda ku shaqeynaa waxa uu noolaana ayado way soo tunkan buu joogaa ayado oo jacayl soo hadii ana ayado idin buu kula noolaana ana afteeda kala okay ma sha Allah laakiin saddex gabadha hooyada waa fijileed may fijiyo oo fijiyo ma jiro laakiin hadii oo fiicno laakiin caadi weeru jeedita caadi ما شاء الله لو فاميلي هذه وهوياش وعايشين له اوكي ما شاء الله ثانكس برادر وما سنتاي ويلكم برادر كسروا برامجك ما شاء الله برادر على رالي مقاعد سدحنا اول بالوار انا برو سعودي سلمان عبد الرحمن سلمان عبد الرحمن اوكي ما شاء الله ثانكس برادر غير ملاقاي ما شاء الله الفاميلي كده ولي جوجتين هدي هويد gabadha ku dhacday waan ku noolaana ma xasamele maadaama intuu gurigiisa wajahsha soo hadda dhacdo waan keenaa laakiin dadib kama qabtid hadii oo hooyada ay maado oo xanuunsan ay gabadha ay ku diiday gabadha wada joogtay hooyada ay ma imaan karto ma xasamele taasi hadda ma kan inuu ka wadi basoo انت صبرت على شو صوت الناس صبرت نكون ملا اماكن او اماكن غير كثير ما تقول اوكي ما شاء الله waxaa leedahay aniga hooyaday inta sano soo korsay ugu soo barbaarisay gabadhan shalay aan arkay darteed haday hooyada ay ma karto guriga ama guriga ma qortigleen ma farleed gabadhaas farada furleed laakiin rarkii familka ma fikirleen hooyada darteed furleed اوكي ما شاء الله ثانكس برا ويلكم كسر برامجك ما شاء الله اباي سودو اوكي ما شاء الله سؤالنا ويدي مو فرح صداي اوكي ما شاء الله waxaan ku weydiin rabaa William Bruce اوكي ما شاء الله laakiin waa rajanaysa اوكي waxaan ku weydiin rabaa lacala ninka aad mustaqbal la wadaagirto mustaqbal la wadaagirto hadii hooyis ku maado ay ku dhado waan ku noolaanay ma xasameeyay guri kala kiraysa dhileed صوت يا معنا markaa soo dhaweeyna diyaar waa laakiin aan ku noolaado ma rabin maxaa dhile soo wiil kooyis waxa dhile guri kala kiraysa dhileed hay maxaa sababta u dhaaday maxay tahay saasa farxad inay isku deysaan fiican in ku noolaado waa la sanaaya hadii meel kala degan waa la soo deysay saasa wanaagsan okay ma sha Allah hadii wiilku uu ku dhaho ani maadaama hooyada ay tahay adigana meel kala guri kala kiraysa leedahay haduu ku dhaho aniga darteeda hooyaday inay inta joogtaan raaw ku dhaho misadii kale ku furay ma sameeyay way furi karaa waa faraxsanahay in lama waynaayo marka guurka mu burburin leed maamadaas darteeda wiilkeeda uu saas ku dhahay ma ku burburin leed ha burburo laan ma jirto laakiin maamada in la suuqaysa fiican oo duurka degantaa ana xagga deganahay la soo booqanaay markaas la suuqaysay laakiin waa la iska aqbal badan hadii tuu ku aas la joogo waxaan jeclaan lahaa in la suuqayso oo xagga lagu kala noolaado laakiin martiqaad soo dhaweyn ah diyaar baa waa اوكي ما شاء الله waa ku faraxsantahay marka aduu arinta soo leeyahay ina kul tigtiin waa ku kala tageena diyaar waa arinta ku faraxsantahay اوكي waa ma santahay walaashay macaan welcome soo laakiin magacaada saddexan fahmo hal gashiir اوكي ما شاء الله soo walaashay macaan barnaamijkana waa barnaamij hadda aan bilawnay ma sha Allah waxaan jeclaanaa mar kale mar saddexaad inaan la qayb qaato sidoo kale insha Allah soo walaashay waa ma santahay welcome brother اوكي ما شاء الله thanks brother adoo raali magacaada saddexan noo bilow محمود عبد الله ما شاء الله ثانكس خير ملا سعد سعد والله اوكي ما شاء الله فاميلي كدا joogtiin oo reerka oo soo jeedada hadii la ala hooyadku ma ku noolaan ku dhilid maxaa sameeyay saaxiib ma ku noolaan اوكي hadii adii hooyada xanuunsan ay family ku soo biirto ay maado ay waayadan oo ku noolaan ku dhilid maxaa sameeyay اوكي
laakiin haddii gabadha awal joogtiin hooyada hadday dhahdo aniga guriga ma ku noolaanayso maxaa samayn lahaydeen waa hooyada maalinta sanayso korin jirtay iyada daraaddeed waa furi lana ee darafta u furleed familka inta sana jecel soo maray 3 sano jecel darteed u furleed familka hooyada oo furleed waxay aaminsantahay in hooyada ka jeceshahay familka okay masha Allah thanks brother ma santahay welcome to Sulu Bro